بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ugu horeyn anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shirkadda Golis waxaan si mug iyo miisaan iyo meeqaam sare leh ku soo dhaweynayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan sharafta badan ee aynu u madlanahay inaynu ku soo bandhigno adeegyo iyo shahaadooyin caalami ah oo bulshadeena, shirkadeena, dalkeena iyo dadkeenaba faa'iido u leh. waxaan mar labaad salaamayaa ka soo qaybgalayaasha oo ugu mudan yahay inoona imaanayo wax yaroo shaqaa ku soo daahay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Ilyas Cismaan Lugator, golayaasha dowladda, golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada, isimada dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, bahda meediyada, culimada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha intaan xusay iyo intaan xusinba. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan uga mahadcelinayaa mar labaad waqtigooda qaaliga ah ee ay noo soo hureen oo ay halkaan noogu yimaadeen si ay u dhageystaan waxaan u soo bandhigayno ummadda iyo shacabka horeyna aan ugu haynin. intaas bacdigeed, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan maanta u madannahay inaan halkaan ku soo bandhigno shahaadooyin aynu hananay oo runtii meeqaamkeenna ka Puntland ahaan, ka shirkad ahaan, ka Soomaali ahaan wax weyn u taraya. shahaadooyinkaas maanta aan u mudannahay waa 3 shahaado oo ka turjumaya shaqada shirkadda Golis ay u hayso ummadda. haddaad shaqo haysid waxaa la rabaa sida sheekhuba sheegay manfaceeda inuu cid walba gaaro. shahaadada ugu horeysa ee GSMA ay bixiso oo aynu ognahay waa Mobile Money Certificate. shahaadadaas waxaan u malaynayaa markii la bilaabayay lacagta danabaysan lama aqoon badan iyo xirfado badan looma lahayn. sidoo kalena waxay ahayd wax macnihii aan ka suuroobin wadamo badan oo adduunka ka jiray. waxay ahayd wax innovation ah oo aynu bilownay oo aynu kaga hormarnay innaga oo muddo badan xaalad ay Soomaaliya ku jirtay dowladaha kale oo adduunka ka jira. maanta waxaa ilaahay mahadiis ah inaynu gaarnay level uu noqdo mobile money-ga lacagta kuugu jirta mid la isku halayn karo oo kulansatay dhammaan macaayirtii ama standardskii internationalka ahaa oo la rabay in uu shirkad bixinaysa adeegaas ay kulansato. sida la adligeed waxaan shacabka iyo ummadaba u sheegaynaa inaan maanta ay maqraanti ka tahay inay shirkadihii internationalka ahaa oo ISO ay ka maqraanti kacday shahaadana bixisay in ay shirkadda Golis tahay shirkad fulisay dhammaan waxyaalihii looga baahnaa. waxaan filayaa dictoorka ayaa inoo soo bandhigi doona waxay ku timid dadaal dheer iyo shaqo badan oo la qabtay ayay ku timid. waxaa ahayd weliba oo ilaahay mahadiis ah mar kasta oo la joogo update baa lagu sameeyaa oo shuruudaha ayaa lasii adkeeyaa. taynu maanta qaadanay oo maxaan ku rahdaa waa kuwa ugu dambeeyey wey. waxaa ku xigtay iyadana aan qaadanay quality management system ISO 9001 oo ka turjunta shirkadaasi inay habraacyadii iyo standardskii loogu talagalay in loo maamulo company noocaas ah ay fulisay oo iyadana maanta aynu ku guuleysanay version 2015 iyadoo ah update-kaas. waxaa kasii muhiimsan oo iyadana wax lagu farxa ah inaynu qaadanay shahaadada ISO 27001 oo weliba versionkii 2022 ah, versionkii ugu dambeeyey ee caalamka laga qaato oo shuruudihiisa markasta lasii adkeynayay aynanu maanta qaadano oo u wanqalayno. ilaahay mahadiis weeye. waxaana inoo soo sharxi doona insha Allah ragga iga dambeeya. waxaan iyadana waxaa xusub mudan
iyadana inaan soo siyaadinay adeega biometric casri ah oo voice ID la yiraahdo. voice ID waa biometric kind of biometric way wuxuu ka turjumayaa waxaynu arki jirnay passport qofka markuu qaadanayo farta inuu saaro ama indhaha in qofka laga qaado. hadda kan wuxuu ka turjumayaa inuu codkiisa qofku uu passwordkiisa u noqdo oo waxa weeye mar badan aad u anfici doona hay'adaha internationalka ah iyo oo aanu nagala shaqeeyo aanu mahadnaqayo waliba khaasatan si gaar ah aanu mahadnaqayo ayada care oo runtii waqti badan gelisay hawshaan inay hirgasho. ana rajaynayo hay'adaha kalena inay iyaguna arki doonaan balse uusan ku koobnaan doonin hay'adaha uu ku koobnaan doono cid kasta oo cash distribution samaysa ama mushaar bixisa sababtoo ah qofku marka lacagta loo diro oo foomka laga buuxiyo u dhici maayo ilaa uu codkiisii isagu ku hadlo oo yiraahdo waa anigii waa hebel furahaygu passwordkaygu waa lambarkayga markaas ayay lacagta u dhacaysaa. macnaheedu waa more safe. qofka xataa waxaa dhici jirtay bayrolka dowladdu waa uga faa'iideysan doontaa saarjeynayo dad iswaayo hore dhintay inay mushaaraad u dhacaan. waxyaalo badan tiknoolajiyadu sida wax badan bay fududeynaysaa wax badan oo faa'iidooyin ayaa ku jira insha Allah waxaad kaga bogan doonaa waxyaalaha soo socda. haddana intaa taa uga gudbo oo wax yar aan ka sheekeeyo Golis mudanayaal iyo marwooyin shirkadda Golis sidii sheekhuba sheegay asaaskeedii la asaasay oo la yagleelay 2002 muhiimadda loo asaasay waxa asaasay ganacsato reer Puntland ah oo ka danqaday xaaladda dalku markaa marayay oo ay dad waalidiin doon u raacaan inay carruurtoodii la soo hadlaan xilli la kala irdhoobay ama ayay ahayd. waxay marka ka danqadeen arrintaas waxay go'aansadeen inay asaasaan shirkaddan inta asaaskeeda waxa asal ka ahaa oo ugu mudnaa in aan marka ugu horeysa horta ujeedo sabab dadkan loo asaaso in la helo shirkadda in la asaaso. ujeedooyinkaas waxaa ka mid ahaa kow in la helo la isku xiro Puntland ama Soomaaliya iyo caalamka oo kala go'naa oo laga saaro marxaladii adkayd ee raadiyaha ama diyaarad loo raaci jiray ama raadiyaha intii la qaato haroo ma maqlaysaa wareeg la dhihi jiray oo aynu soo marnay in laga baxo. waxaa ilaahay la yaabaa muddo waxa weeye raggii reerkii radi jiray waa joogaan. xaaladda markaanu aragnay ayaa waxaan go'aansanay xerada qaniinka leh inaan reerka ka rafno oo weliba nin odayba hadda ka hor wuxuu iga sheekeeyey sheeko la yaab badan. wuxuu yidhi ninbaa wuxuu dhalay ninbaa aabihiis ayaa hooyadiis baa dhimatay. aabihiisa waxaa la siiyey markaa gabar yar baa la siiyey odaguna nin weyn buu ahaa. adigu waqtigu waa kooban yahay waan gaabinayaa. waxaan ka soo waday ninkaasi wuxuu xalbiday inuu odagu magaaladu joogay intuu tago oo taarka soo fariisto inuu la soo hadlo odayaashii deegaanka oo yiraahdo waa hebel odayga intuu iska dhigo odayaal u yeero maqraanti uga dhigo oo yiraahdo gabadhii hebla ahayd waa furay ilaa la isma arkaye. marka marxaladaas baa taarku dhibkaas u lahaan jiray oo isagoo gabadhii oday habartiis iyo uu kala furo iyo aabihiis. haddana waxaa la marayaa heer aan qofku dareemin inuu reerkiisii ka maqan yahay oo uu video call ciyaalka quraanka kaga dhageysto. waa ilaahay mahadiis iyo waxa sababay oo ay Golis noo soo siyaasay weeye. waxaan markaa waxaa ka mid ah inaan ummadda ilaalino akhlaaqdeeda dhaqankeeda iyo diinteeda inaan ilaalino oo telecommunication waxaa ka shaqayn kara gacan aamin ah sababtoo ah waa seef laba af leh oo u baahan in dhinacna maslaxadda ahna looga faa'iideysto dhinaca xuna ummadda iyo bulshada laga ilaaliyo. sidaas waxaanu anagu markasta priority-ga siinaynay inaanu tixgelino marka hore waxa manfaca bulshada u noqonaya oo aanu dib marno oo dib dhigno waxa maxaan ku iraahdaa anaga dantayada ah. qodobka ugu dambeeya oo ahaa inaanu faa'iido helo qodobo dhowr iyo toban ah oo loo asaasay Puntland waxaa leeyahay shirkadda Golis ayuu wuxuu ahaa qodobkii ugu dambeeyay. manfaceeda gobadii waxaan leeyahay shirkadda Golis inay guusha gaarto waxa uu sabab ahaa asaaskii Puntland oo nabad la helay. waa u ducaynaynaa dhammaan intii ka qayb gashay boorkii shirkadda asaasayaasheedii oo
هدف كود وها إخلاص إيو إن أمده وحلو قطه وجدوا أنت على كل سنة حديتينا شغالها إيو مامور الشركة ده وهل هدف يهل وجد لها هي شعب كي ولا لا شقيني بلنتين وقدام بيتي واحد مرة بعد يمسد حاجة صور وين يا كسوق الجرياشة وحنا لا هي بلنتين وجلس بلنتين وحضلية يا هول بلن